maanta ayaa waxaan idin wada barnaamij aad cajiib ku ah markaa maqashaan aad la yaabi doontaan dadka aan ku nooleen meesha hadda aan joogo waayo waxaad arkaysaa dad muslimiin ah walaalo ah oo haddana aan is-salaamin dad muslimiin ah walaalo ah oo markay iska hor imaadaan mise in badan kala maqnaayeen markay is arkaan aan is-salaami karin arrintaas ayaa waxaa keenay cudurkay maalmahan caalamka ka jiray oo la yidhaahdo COVID-19 coronavirus aad iyo aad ayuu islaamka dhexdiisa xaalad xun ugu beeray xaaladaas oo ah aad iyo aad mid oo aan u wanaagsanayn in hadda la sheego waayo masaajidadii lagu cibaadaysanayo ayaa la xiray waxaa kale la sameeyey muslimiintii dhexdooda ayaa waxaa lagu abuuray cadaawad gaar ahaan oo cabsi ah taas oo haddii waxaa la yidhahda haddaa isa salaantaan cudurkii meesha dilaaga ah dhibaato weyn baa idinka imaanaysa oo idin dilaya marka walaalayaal meel walba aad joogtaan waxaan idinka codsanayaa in aan isa soo ducayno oo ducada aan badino waayo caalamkii ku faanaya cudurka waxyaalaha baawarka ay ku faani jireen in caalam dhan ay dumin karaan ay ku faani jireen ayaa maanta waxay u dhimanayaan maalin walba 5 kun 6 kun ayay u dhimanayaan annaga marka maxaa nalaga rabaa in aan samayno annaga waxaa la rabaa in aan samayno ayaa waxay tahay in aan badino ducada alla ka cabsigana aan badino oo mar walba aan isu soo ducayno meel walba aan joogno barnaamijkaas ayaa intaas barnaamijkii maanta intaas ayuu ku egahay fadlan haddii aad la kulanto walaalka intii hataa haddii aad ka cabsanayso haddaad salaamto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayaad ku salaami kartaa ada oo wareysanayo hataa sidii awaamirta dowladaha bixiyaan si aan u qaadano hataa wax yar aan kala dheeraano laakiin aan isa salaamo assalaamu calaykum Dimbaloo jaayima dhimasho badiiday kooy dhuurane